السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرير سوماليان يوم الإسلام كي وايد السلام ميل كستو أشوك تنبأ dhaantadii ma dhamaatay dhaantadii la ascaanood ka socotay ayaamahan ma dhamaatay waxaan arkayaa dad le Soomaaliland maxay ka qaadi kartaa maxay qaban kartaa maxay xamse yeeli kartaa xamse muxuu bedeli karaa intaanad i weydii Soomaaliland maxay yeeli kartaa iyo maxay ka qaadi kartaa waxaad is weydiisaa joogitaanka uu jooga muxuu bedeli karaa muxuu ka bedeli karaa Soomaaliland muxuu ka bedeli karaa laascaanood waa Soomaaliland sharciyan bay ku tahay xuduudihii shanta Soomaaliyeed u dhaxeeyay ayay ka mid tahay waa dhul Soomaaliland kaadi badanina waa loo gogol badiyaa marka Soomaaliland horeysa iyo dambeysaba waxa weeyaan laascaanood waa Soomaaliland gacanta Soomaaliland baanay ku soo noqonaysa ama nabad ha ku soo noqoto ama colaad ha ku soo noqoto ama in la isgarawsado oo sharciga iyo xuduudaha la isku ixtiraamo ha ku soo noqoto laakiin waa Soomaaliland gacanta Soomaaliland baanay ku soo noqonaysa wiilka lagu muusanaabay hablahoodu ku soo muusanaabeen laascaanood isku soo tuuray waxa la wuxuu bedeli karaa ma jirto ama 10 habeen ha ka dhaanteeyo ama 3 cisho ha ka dhaanteeyo dhaantadu maalintay dhamaato uu iska tagaya markuu tagana sool maxaan ku dhahday laascaanood halkeedii bay ahaanaysaa tuulada yari waxay bedeli karto macnaheedu riwaayada iyo beenta annaga Soomaaliya isku hayna iyo annaga isu soo jiidayna iyo annaga waxaan maxaad ku soo jiidaysaa matuulada yar laascaanood baad ku soo jiidaysaa ayad wadan isugu keenaysaa waxaad isugu keeni kartaa ma jirto tuulayowga aad Soomaaliland ku leedahay waxay ka mid yihiin tuulayowga kale ummadda Soomaaliyeed xuduudaha Soomaaliya ay ku leedahay shanta Soomaaliyeed qabiilo isku wada nooc ma degana qabiilka halka degani wuxuu ka mid yahay qabiilada Soomaaliland dega dhul yarna waa ka degay wax ka bedeli karaana ma jirto maanta marka maxaan ku dhahay wax lagu wada socdo inaan hayna waad aragtay madaxweynahaagi baa ka hadlay lagumana wada socon karo oo runtu markay runta timaado beentan la malmaluuqayo iyo calanka faraha badan ee la tooranayo bafta lagu hayaa ma shaqayn doono dadkii dalka u dhashay sool iyo sanaagta aad sheegayso kuwii u dhashay Muqdisho kaga sii horeeya kuwii baa la xisaabtamaya soo garab fadhiisanaya orayel sool iyo sanaagta aad sheegayso waa intee halkay ka shaqaynayaan haddii ay hawiye ogolanayaan in tuulayowga maxaan ku idhaahdaa tuulayow maamul goboleedya laga dhigo oo ay ayagu isku aqbalayaan 3 maamul goboleed oo maxaan ku idhaahdaa lagu caburiyo reer Soomaaliland waxba lagu yeeli maayo laakiin magacuyaal inta la sameeyo ayaa la rabaa in lagu maxaan ku idhaahdaa lagu cuna qabateeyo oo lagu caburiyo dadka koonfurta Soomaaliyeed dega iyo hawiye haddii ay taa ogolanayaan ayaga u taala laakiin Soomaaliland marnaba waxba ma yeeli karo hadalka uu ninka halka uu ka yiri wax allaala iyo waxay Soomaaliland ka bedeli kartaa ma jirto marka kuwiina la Soomaaliland maxay yeeli kartaa miyay soo cawriyi kartaa maxay samayn kartaa waa Soomaaliland dhulku walaalo caalamkana waxa loo sheegayaa oo kaliya in deelqaaf halka lagu joogo in dhibaatadii Soomaaliya ka socotay 40 sano ee caalamku xallin kari waayay la doonayo in dhulka nabadda ah ee Soomaaliland lagu soo faruuro oo lagu soo maxaan ku dhahday la soo geliyo dhibaatooyinkii iyo al-shabaabtii iyo meeshii wax dadkii meel kasta oo aanu maamul adagi ka jirin ba iman jiray in Soomaaliland qayb ka mid la rabo in lagu beero ayuunba caalamkana loo sheegaya haddii ay taasi socon weydo nabadda iyo wanaagga iyo sharciga la kala qaadan waayana waa la ismuquuninaya ma fahantay waay sooliya sanaagaad leedahay iyo caynaad leedahay ma jirto oo reer leeyay ma jirto waa dal Soomaaliland la yiraahdo marka
kaadi badane ha loo gogol badiyo maxaan ku dhahdaa sooliya sanaagtan la sheegayaana macnii meelo yaryar baa somalilan ka maqan meelahana waa la soo xarayn doonaa sharci ayay kusoo xaroon doonaan ama cudud bay kusoo xaroon doonaan labadaa mid weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu